waa kaas taliyo sii dhacayo kas bareer cadow dilnikan waa oday konton jir ah oo da'daas jiro askari qaran ah ma ahan rabshay inuu sii shaqeeyo asagoo konton jir ah haddii la soo weeraray gacmaha muu isa saaranaa mudane guddoomiye oo naftiisii la soo aaday ma fiirsanaa video miya taliyaha wadnaha ugu dhacday taliyaha markuu qombulo isku yiri isku dhacay ayaa marka askartii meesha joogtay ay xabad furtay marka afartii gadaal joogtay leelow khasnada igu soo kaceen an hasha khasnada haasna ku faaruujiyay qofka haddii xabad lagu aado guddoomiye ma ku siinaya xalwad dagaalkii ka bilowday gabdhaha kuna dhammaaday dilka taliyihii booliiska xaafadda ayaa maanta looga garnaqayaa fagaarahan iyadoo la xisaabinayo debla nisa maadey cadow maxamed oo maalintaasi riday xabado tirabeel ah geerida marxuumkana sababtay aan idin geeyo magaalada marka iyo maalin ku taariikhaysan 22kii bishii 7 2025 oo dagaal safayn ah uu dhex maray koox gabdha ah ayna ku jireen eedeysanaha kuwa uu awoowo u yahay oo ay dhashay gabar uu abti ugu aadanaa kuwaasi oo la dagaalay qoys diris la ahaa buuqaasna waxaa ku soo baxay saldhigga booliska magaalada iyagoo xiray haweenkii shaqaaqadu dhex martay marka laga reebo gabdhihii uu awoowaha u ahaa maadey wax yar kadib saldhigga ayaa 2 askari u diray inay soo xiraan gabdhihii dhanka eedeysanaha xigay balse maadey ayaa ka biyo diiday qori AK47 ahna la soo baxay ilaa uu isku dayay inuu shaqaaqo ka dhex sameeyo saldhigga gudihiisa balse mar dambe oo gurigiisa uu ku soo laabtay ayaa waxa uu yimid taliyaha waaxda horseed ee magaalada marka farxaan xuseen qaylow oo maadey ku amray inuu digtoonow galo qoriga tiiriyo gabdhahana ku wareejiyo booliska jawaabta eedeysanaha ayaase noqotay 2 baalooto oo wadnaha ka haleeshay taliya farxaan wuxuu diiday in laga hortago fidnada meesha ka dhacday oo labada qoys oo isdagaalay maadaama qoysna maxkamaddii ay joogaan qoyskiisa u sheegtay awood ah qoyska kale waa la xiri karaa laakiin qoyska kale ma xiri karo maxay la qorayaan wataa ana waxa uu askari lama taaba karo wuxuu gadaal gashtay qoyskiisa taasoo cadaaladda lid ku ah maxaa yeelay 2 qof day isdagaalaan waa dagaal safiina 2 qof waa in la wada wareystaa la wada xiraawo 2 qoys day isdagaalaan 2 qoys waa in la wareystaa qoyska qaldan la ogaadaa baaris lagu sameeyo baarista lagu sameeyo diin isagoo ku marsiyoonaayo waa caruur dagaalka markay galayeenna wuu ogaa inay qayb ka ahaayeen mudane guddoomiye waxaa loo diray laamiya amniga oo lagu dhahay hal qoys maheenayna qoyska kale keena qoyska kale marka la soo doonay oo qoyskiisa ah waa uu ka baya diiday in uu geeyo maxkamaddii meesha waxaa ka dhashay muran maadey qorigiisoo la soo baxay wuxuuna diyaar u ahaa wax walbo inuu u sameeyo in aanan la geenin saldhigga lana xirin qoyskiisa in uu dadkan hortaagan oo askarta ah oo taliyihiisa ku jiro inuu dilo meesha waxaa ka bilaabatay rasaas uu asaga bilaabay maadaama uu diiday rasaastan waxay ku bilaabatay markuu qorigaystay taliyaha wuxuu yidhi waraa digtoonow qori kan marka la aado qoriga la aadana gadaal u degay gadaal markuu uga taliyo qori ku qabtay meeshaas waxaa lagu dilay oo isla markiiba uu ku dilay marxuum faarax qeeliyow asagana meeshaa lagu dhaawacay soo u baxsan waana la soo qabtay waa kan hadda maxkamadda hor fadhiyo marxuumka la dilay wuxuu ahaa marxuum la shaqeeya laamaha amniga kana shaqeeya kana tirsan lana shaqeeya maxkamadaha waxaan ognahay maxkamadda hadda hor fadhino markay u baahatay eedeysane waxaa loo diraa taliyaha saldhigga taliyihii loo diray haddii laga hor imaado oo iska horimaad lagu sameeyo oo la dilo waa arrin mucjiso ah oo aanan la arag yaa dilaayo mid ka mid ah askartiisa ayaa dilaayo faarax inaad dishay oo kasu dishaa lagu haystaa eedaas ma gashay mise ma gelin tada ka qabtaa dooda ka qaba doodada cadee faarax inta hadda dadka markaas dhimahayo iyaga 6 qofood ay weerar igu soo qaadeen gurigay ugu yimideen cigaal aniga dhali ay dood inay xoog wadaan ay damceen xabsi ay geeyaan aniga waa ka diiday iyaga 6 qof ay ahaayeen mid kaliis gaaro soo taagnay faarax dhimahayna dhaxas ku jira 4 dibay taagneed ana kaliya goonahay markii ilmaha waa laga wadaaliyo ilmaheedii gurigeeda difaacooda galay ay weerar igu soo qaadeen xabaday ugu rideen 4 gadaal joogtay aniga hore jiro hal nin oo kaliis goon u taagan ay xabadii bilaawatay faarax nin xabadiis ay ku dhacday oo lahuwa bajirto bareer cadaas ku dili ma la dhihi karo beena laga sheegay 4 gadaal jirto xabaday soo rid ana xabada rid hadda ninkay xabadiis ku dhacday cid caday karto ma jirto mana lahuwa laakiin ana dush laga saaray
wax had kharaar la ahna ma aha laakiin waa dusha liga saar tala iga saaray tolka muxuu kaaga saaraa macna tolka maadaama gurigaada xabadda ay ka dhacday adiga ilaa waa yar ilaa aniga xabaddaas aniga teeda inay ku taal farax ma aaminsan maxaa isku qabateen markii hore markii hore ilmaha isku qaban haddii jaanis yar siyaasa ku sheega haye gabar aniga dhalay iyo gabar kaloo ilma adeer ah isdagaaleen markay isdagaaleen gabadheedu waa isoo wacday anoo gurigay joogay isoo wacday aabba waa la dilay tiri waa bax waa u tegey dhibaa ku yili mid kaleeto dagaal gasha u tegey waa fiiri dhibaa ku yaalo mid kaloo askara ii yimid oo ilma adeer nahay waxaa iri xaggii dadaa ka soo duulay intana dadaa ka soo duulay naaga isku yimideen waxaa iri naagahaas iga celi reerkooda u dhaq ana kuweeda ceshaha waa soo kala wadane markaa guriga imideen mabala liga soo wacay waxaa la yidhi xabsiga maw gabadhii dhibka geysa ken waa wada gabarteed anaa gacantay ku wadaa xabsi ku geey ma la waraysan waa la xiri waxaa la yidhi ilma 3 cunuga 9 jir waa lagu haastaa la yidhi ken gabadhay la jireen dagaalkay dhinac ugu jireen war ilma 3 jir dagaal ma geli karaan waxna ma geysi karaan maxaa waay ma ilaa waa loo baahan yahay ilma ma la wadaay waay 3 qor wadata saldhigii ka soo baxday sheekh Nuur Funjaas weeyahay maxkamadana as joogo 3 soo baxday guriga lagu yimid aniga gadaashooda say guriga yimideen islaantii yareen ilmaha dhinaca waa dugsiga yaadina leer dugsiga laga soo wada leer ana ka daw imid waxa leer ilmu wadaytan gabadhi dhibka geysat ana gacanteenu geeyar waan xirteen 3 cunug waxay geysatay male markaas sheekh Nuur Funjaas yiri ilmaha ma la xiriir rabo waxaa la tusaasir dadku weyn oo ma joog ilmaha dhibka ma geysteen amba ma geysan kalgada la tusraba maadaama saas ay tahay waajib hadda gabarteed anaan igi hadan ilmahan anaan keenayar iga laabta anaga meeshii nuu joogto mid kale qorwata yimid oo afraad ogol 3 joogay mid afraad soo galay mid afraad waxa sir ilma loo baahan ninka asal loo baahan yahay naftiisa loo baahan ilma loo baahan sir marka saas sir aniga qor ma haysan maadaama naftada loo baahan yiri qorgiya soo qaat waxay deeqada si qaadar hadwaya waxba mal kala qarhay waa mid kale afraad ay wacay ninka hadda dhimahay mid kale soo wacay lixay soo noqdeen mid ka dhimahayo markaas mid waxa iri dad anaga tali beesha oo subtan way tali mata nimankan iga cilaar ilma gabadheedu waa geey waa la xir hadan ilma li waata ilmaan ana ballan qaadana keenay iga naqayr ma jirta sir maanta adaa lagu baahan yahay aniga ma dii baahan dinha marka day lix noqdeen cabsa ay ugu dhashay xooga waa roor ina rooro dam markii rooro cabaar rooro 20 meelood rooro kufur li maqal kufur marka maqla dib oo soo jeesay marka dib oo soo jeesay faarax dhimahay ninka uu yimid kaliis goona soo taagnay faaraxna waa aniga soo rooro soo buri dhax soo istaag afar nin gadaalay safneed marka dib oo soo jeesay markii kaliis joogo faarax uu yimid laba xabad igu soo riday laba xabad markaas igu soo riday mid saddexaas igu soo riday ana laba xabad wax la qiyaasay weel ciyaar leeyahay ama lagu waabsiyo leeyahay mid saddexaas igu soo riday fartay ugu dhacday fareereed lugtay ugu dhacday markaas kii laba xabad ku riday xabadee dhul ma dhac markii aan jilbka liig jabhay ninkii jabin hadda xabsiga meehnas jooga maxkamadaas jooga markii aniga xabadaas jilbka liigu dhifto kala gadaa u dhacay afartii gadaal joogtay ila qasbada igu soo kaceen an ha shaqas haasda ku faaruji faaraxna dhaxas taagnay xabadaas weeraraya teen weeraraya ninkii tiisa ku dhacday ilaa hadda ala ku xal ma loo taliya billahi tawfiq faaraxa dhintay muxuu ka ahay meesha aag taliya qaybada beeshas qala taliya wahay qoyskaaga in la xiro aad diidaysa miya ana qoyskay xirga moodidan ilmaha xirga u diiday ilma dhidhin xasabiyaneen qofta qaangaaro dhibka geysata ana gacantay ku geey ilaa ilma dhidhin xasabiyaneen xabtana la geey ana diid marka doodda iyo xabadda waxay ka bilaabatay ilmaha ka bilaabatay diidmahaas mid ka mid ah askartii loo diray inay soo xiraan gabdhaha uu difaaca u ahaa awowgood maadey ayaa maxdarkan warbixin ku siiyey garsoorka ciidamada qalabka sida farax wuxuu joogay meel waaxid oo saldhiga uu joogay marka waxaa dib soo gaaray xaafadda qayb ka mid ah gabar nuurta la yiraahdo soo dakhray widoo dakhrna ay saldhig timiday markaas taliyaha meesha waa ka maqnaay dadkii joogaya gabadhii soo daqartay raadiyey gabadhii waa la keenay marka gabadhi oo la soo dakhray waxa kale ku andacootay tan kaligeed ima dilan ciyaalkeed baa la socday oo 3 cunug ah gabadhii markay la keenay maadee gabadhu la imaado marka wasoo qorigiis wato gabadhan lama xiraayo yiri gabadhii oo dhibka geysatay lama xiraayo yiri marka markii dambe dad meesha goob joog ka ahaa una seexiyay waxa leeyahay gabadhan dhibay geysatay gabadhan u dakhrantaay
ka joog arrintaas sidii uu arrintii u qaatay marka qorigiisa wuxuu soo dhigtay dukaan oo saldhig ka soo horjeedo sidaas uu xafiiskii ku soo galay gabadhii sidii xabsiga loo taxaabay markaas kadib waxaa taliyaha amar wuxuu bixiyey in ciyaalka la raadiyo la keeno ciyaalkii la raadiyey marka dadka raadiyey marka koowaad 3 qofoodaa baxday oo aniga aan ka mid ahay markii aan xaafadii aan ku dhawaanay waxaa naga daw yimid maadii oo qorigiis wato oo awal saldhig aan ugu tagnay ayuu naga daw yimid maxaa naga soo doontaan markaas wuxuu yiri ciyaalkaas lama wadaayo war ciyaalka waa la wadaayo wuxuu yiri taas cid ku weydiinaysa ma lahan marka annagoo doodii hayno waxaa noo yimiday 2 askari oo timid oo midna tali ku xigeen uu ka yahay meesha iyo mid la socdo annagoo doodii hayno oo ilmihiin weel gacantaan ku haynay intaas kadib markay dhacday ninkaan markii tali xigeenka iyo askariga la socday oo anaga naga dambeeyay markuu arkay ninkaan xaalad waa isbedesho indayti anaga digtoono naga ma qabanayo hadda waxay labadaan markay timid kadib gadalgaal uu dagay wuxuu yiri maanta ma ana la soo raadiyay maanta intaas markay dhacday kadib wax yar kadib waxa yimid marxuumka dhinti Faarax ay yimid oo hal staff wato maadeen markaasi waa naga soo horjeedaa sidaan kale isku soo horjeednaa taliyaha markuu yimid waraa wuxuu yiri ma adaa lagu bari ciyaalka yiri marka farani wuxuu yiri ciyaalkii maanta meesha lama geenaye ma intiina maanta aan ma shabaab inay la noqdo aan ma isoo aadeen yiri marka intaas markay dhacday kadib taliyaha wuxuu isku dayay ninkan inuu qori ka dhigo qori xaqiisu aaday markii xaqiisu aadanay maaday qorigii gaalgaalta u boodo 3 xabadood ama 4 taliyaha wadnaha ugu dhacday bidax taliyaha markuu qombulo isku yiri isku dhacay ayaa marka askartii meesha joogtay ay xabad furtay marka sidaas uu ku dhintay tali Faarax Allah u naxariisto muxuu ahay qofka dhintay Faarax waaxdaas oo tali ka ahaa waaxid magaceed waaxid horseed waaxid horseed oo tali ka ahaa saldhig ku yaala oo tali ka ahaa xabada lagu bilaabo dhuuya mudane gadoomiye arrintaas waxaan ugu jawaabaa nimanka asiga waa naga soo horjeeday taliyahana ciidanka ula socday saf bay ku jireen marka xabadana intay ugu taalaa marka asigana hal nin oo naga soo horjeedo ahay xabadaha asaga riday yaa bilaab xabadaha maadii asaga bilaab markii xaqiis la aaday oo karkaan in la dhimeeyna taliyahana uu yimid oo ogaaday iga xabadu bilaab marka qoriga in laga qaado la rabo miyaa qori in laga qaado la rabo taliyaha markuu imaan ninkaan qori inuu ka qaado rabo asma dhalay ku xiray ilmaha gabadha dhashay ayaa abti u yahay asiga ilma awow amal u noqon kale gabarta xataa ma dhalin miyaa asiga ma asiga gabarta ma dhalan ilmaha ma aragtay ninka meeqa jiro ilmaha ma arkan baasha markii ay dhimasho dhacdo kadib waa xaalad fara waa ka baxday gabadha kale oo saldhig rugta timid dacwoonaysa ayaa ku dacwoonaysa miyaa ilmaha ila dilay ilmaha la jireen kaligeed ma ahan gurigeeya lagu soo weeraray iidii ilmaheeda gurigeeya igu soo weeraray ku dacwoonaysa marka meeqa jiro waa amal ilmaha kulay adiga 14 jir meelahaas la sheegay iyo 13 jir ma arkin anigaas dasal wadina sabkaat maxkamadda waxaad u sharaxdaa dilkaas kas muu ahaa kas si bareer ma u dilay mase xabadaha kaska ma ahayn ninkan kas bareer cadow dil ninkan bareer u dilha maxkamadda ma santa markuu saldhigga imaanayay ma uusan hubaysneen sax soo maaha waa hubaysnay waxaad ka mid ahayd ciidankii aaday guriga maaday sax soo maaha sax ciyaalkan raadin waxaa kula socday dhacdadaasi xasan marduuf iyo xuseen geeley sax soo maaha xasan marduuf waa ila socodaan xuseen geeley ilma socon ma jirtaa inuu dhaawacmay maaday oo loo qaaday isbitaal goobtaas uu ku dhaawacmay kaali ii qorya in loo soo qaaday xamar ma jirtaa ma jirtaa in lacag duug ah la baxshay waa maqlay eedaysanaha horta number 1 waa askari ka tirsan ciidamada nisa dharkan ciidamada nisa iska malaha wuxuu wataa macmuusi shaati number 1 qorayo ku qaatay ciidankan ayaa u tagay oo booliska ah oo saan u libisan waxay dhaheen ilmihiisa la rabaa qorayo soo qaatay asoo warkii ka diidan waxaa imaaday taliya Faarax oo taliyaha xaafadda horseed ee marka ah iyo staafkiisa taliyaha mar allaala markuu soo dhaqaaqi maagay asigoo laba ar isku haleehay koow inuu yahay askari la soo baray disbiliinka ciidanka iyo kala sareynta ciidanka lambar 2 askari dhibow soo maray number 3 inuu yahay askari uu yaqaano oo isku haleehay una quurin xabadaas dhimacda oo lagu dhimanayo
ayuu isku haleyntii darteed uu soo aaday waraadiga askarta warkooda diidna qoray keen waxaa loogu dhuftay wadnaha loogu dhuftay waa kaas taliyo sii dhacayo meeshaan waxaa taagan waa sidoo asigu uu sheegay anaga laakiin waa diidanna maadaama laakiin asigu uu sheegay isku jawaalkan asiga laga sameeyay sheekada Sheekh Nuur markuu u dhis meeshaan waxay noqonaysaa askartan waxay la safnaayeen taliyahooda ayagoo taliyahooda la safnaa taliye kasoo dhaxbax asoo soo aaday isku haleyn darteed saasaa loo dilay laakiin markuu asiga sheegay wuxuu ku leeyahay dhinacay ka taagnaa intay ka taagnaa inuu ku leeyahay dhinacyada ka taagnaa saan asal looga sawiray habdhaqan askariyad ma marka isku jawaalkan sharaxay qaabka faldameed hoggaanka baarista dambiyada booliska ee CID baaraheedii kiiskan min bilow iyo maanta oo laga garnaqayo gacanta ku hayay ayaa fadhigan ku sharaxay sida ay wax u dhaceen iyo natiijadu u soo baxday waxa inoo soo baxay inuu dhacay fal dil bareera uu geystay eedeysane maadey cadow maxamed uuna dilay marxuum xuseen faarax xuseen qaylo guriga markii la aaday ciidanka ay aadeen kadib ay dhimashadii dhacday sax wuu kuu sheegay in xabado lagu riday ee uu dhaawacmay qoraalka intaad ku jirtay baaristaadii sax gabadhii dhibka geysatay ee la rabay in la xiro isaga inuu gacantiisa ku geeyay saldhigga waa uu kuu sheegay intaad wax ka qoraysay sax may ima sheegin gabadhii inuu geeyay kuuma sheegin may inta qofood ee howlgalka ugu aaday in maaday la soo xiro ama gabadha ilmihii la soo xiro u aaday inta qofood ay tahay tiradooda ma kuu sheegay eedeysanaha dhaawaca eedeysanaha gaaray iyo dhimashada marxuumka gaaray waa sabab isku xiraysa hashaan dhacda leh soo maaha ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida dhamme cabdiyare ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto dil toogasho oo qisaasta marxuumka ah mudug gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh in taliyo wax la dilo waa arrin culus oo xaafadeed la dilo waa arrin culus taliyaha waajibaadka markii loo magacaabayo waaxdaas la baray waxaa ka mid ahayd inuu ilaaliyo amniga iyo kala dambeynta maamulka askarta hagidda iyo kala darista iyo roondooyinka inuu ka shaqeeyo waa askari waaye dablanisa maaday asigoo askari ah ayaa taliyay waaxid inta u tagay baarka ku dhuftay iyo wadnaha waana arrin qatar mudug gudoomiye markaa soo gudubno dablanisa maaday cadow maxamed sida ka muuqato waa sirdoon diidaayo sharciga waa arrin culus wuxuu ka tirsan yahay ciidanka hay-adna wasugada sirdoonka qaran sharciga inuu asi diidan maaha inuu asaga wado oo geeyo ahayd si loo helo nabadgelyo xaafadda waxay ahayd inuu ka shaqeeyo labada cid inay heshiiyaan maxaa yeele waa oday konton jir ah oo da'daas jiro oo askari qaran ah ma ahayn rabsho inuu kasii shaqeeyo meeshaas mudug gudoomiye waxaa laisku haystay 50 garaafo ayaa gaartay maxkamadda waxaasay ka murmayso 50 garaafo ayaa gaartay ma aha 20 garaafo aan gaarsiinay laga murmaayo waxa laga murmaayo waa garaafooyin dad gaari laakiin maaday taliye waaxid u dilaba muxuu u dilay 50 garaafo ayaa gaartay muran oo saas isdhaxgal baalkii laba qoys oo isqabsatay oo haddii si dhib leh loo gala xataa uu fuudeyn kara asiga uu xallin kara oo da'deeda uu jir da'du ku xallin lahay maxaa yeele waa da'du ugu caqli badan yahay ugu karti badan yahay ugu baalki badan yahay da'dan karti caqli laga waayo meel kaloo dhagala ma jirto mudug gudoomiye waxaa la rabo marka isaga oo askari qaran ah inuu taliye dila ahayd arrin mucjiso ah oo lama arkaan ah mudug gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh dilkaas inuu ka sahaa maxaa caddeeyahay meeshaan waxaa keenay sababta uu u dilay ayaa caddeynayso wuxuu ku leeyahay waxaan u dilay gabadhaydii oo abtiga u ahaa saldhig laga dacweeyey saldhigii waxaa dhahay dadka kale lagu soo daro dadka kalean diiday lama geehayaan ciyaalka lama geehayaan u dilay taliye waxyaabaha waxa waaye naf ma dhaaf adig konton garaaf ma qof u dhaafina naftiis waa arrin culus waa arrin khatar waaye garaafooyina laga hadlaa markaasaa naf dhan dishay oo taliyahaaga dishay arrin la yaab leh waaye oo mucjisaa waxyaabaha intaa ka maqlayo waxaa ka mid bahalka diyaal laga qaatay wax laga heshiiye ma jirto xafiiska soo gaartay wax baaris soo gaaro laga heshiiye ma jirto kaska uu dilaa layaab taliye wax inuu dilaa layaab taliye xaafad inuu dilaa layaab 50 garaafo gabdhi isgaarsiiyey inuu u dilaan layaab waa arrin mucjiso ah oo aan la arag mudug gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh iska jawaalka aan meeshaan keenay ayaa sharaxaya qaabka iyo fidnada meeshaas ka dhacday iyo qaabka u dhacday حتى ترجري ودنه كلفت تريها حتى إسقلافتها حتى ميلا لو كلفتها جرت بقول فن قفك إن الدليل هداربت
inaad dishaa daarabtan xubno laga dhintaa jirto maaday xubnaha laga dhinto ka toogtay si kasoon u toogtay yaa cadeey sheekh nuur cadeeyo goobjoog ahaa u taagnaa maxkamadda sharaf kale waxaa ka codsanaynaa waxaan ku soo eedeynay aayadda 178 ee suuratul baqara oo ka hadlayso qisaasta iyo waajibnadeeda iyo waxaas ka hadlayso sidoo kale waxaan ku soo eedeynay qodobka 195 bis oo ah askarigii dila askari kale ama sargaal ama laba sargaal oo isdishay adiga ciidamada ka hadlayso qodobadaas maxay dhigayaan waxay dhigayaan qofkii qof dila si kasan u dila inay maxkamadda disho oo dil toogashaa lagu xukumo maxkamadda sharaf kale oo maanta hor taagannahay oo cadaaladda aan ugu raadinayno marxuum faarax xuseen qaliyow oo iladiis ay fadhiyaan waxaan maxkamadda sharaf ka codsanaynaa in dil toogasho ay ku xukunto debla nisa maaday cadow maxamed si loo helo cadaaladii iyo xuquuqdii iyo xaqii marxuum faarax xuseen qaliyow maxkamadda maasantahay qareenka eedeysanaha oo xusay in heshiis laga gaaray dilkan ayaa muwakkilkiisu u codsaday in laga qafiifiyo ciqaabta lana siiyo xoriyadiisa mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh magacayga abukaati ismaaciil xalane waxa qareen u ahay maaday cadow maxamed si waafaqsan qodobka 15 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xafiiska xil ilaalinta wuxuu ku soo eedeeyay maaday fal dil oo kas ah laakiin mudane gudoomiye falka dilka kaska ah wuxuu u baahan yahay sidiisaba cadeyman lagu dhiso isla markaasna lagu xusi karo falkan inuu dil kas yahay lagana rumaysan karo ma la keenay maxkamadda horteeda waa jawaabtu maya lama keenin sababtoo ah waxaa laga rabay dilka waxa ka marqaati kacay sidiisaba markii shariicada islaamka la joogo laba nin oo marag ahaa la rabaa meeshaan wuxuu keenay hal nin oo la yimid halka nin oo la yimid haddana mudane gudoomiye waaba nin dhacdada qayb ka ahaayo lugta kula jiray waay oo wuxuu wax ka weeraray oo isku dayay inuu soo dilo ama qasab ku soo xiro maaday uu isku dayay maxkamadda way fiirin doontaa hadhow fursadan siineynaa maaday lugtiisa waa la arki karaa meeshuu ka dhaawacmay waa lafta dheer oo shanshada oo jabtay dhuuxiisiina daatay mas-uuliyaddeedana ay lahaayeen marxuumka dhintay iyo maragga maanta la keenay iyo rag kalootoo maqan oo ayagana goobtii jiro marka xafiiska xir ilaalinta waxaa waajib ka saarnaa inuu soo qabto xataa dadkaasi dhibka geystay sabab maxkamadeeyo halka dhibanihii keligiis uu soo qaatay laba dhibana waaye laakiin dadkii gudoomiye geystay dhibaatada ee falka goobta ka geystay aaway in la keenay ahayd maanta maxkamadda gudoomiye waxaa jirto oo cajiib ah wax lala yaabo ah markhaatiga ee hubeysnaay ee wax ka doonay ee loo dhageystay maanta markhaati ahaanta in la sii daayo maba aheenba in la xiray ahayd sababtoo ah waxay tahay qeybo wuxuu ka ahay fal dembiga dhacay ee dhimashada iyo dhaawacaba sababay halka dhimashada bes la soo qaatay laga tagay dhaawacii eedeysanaha dhaawiciisi in la xusay ee sida xaq uu u leeyahay kan dhintay ayuu xaq wuxuu u leeyahay kan nool ee maanta xiran labadaba isku xuquuq waaye isku bini aadam waaye labadaba ilaaha karaameeyey macquul ma tahay gudoomiye in la dhaho nin dhintay waxaa la raadinayaa dhibkiisa nin nooloo dhaawacanna waa laga tagayaa waa la xirayaa oo xukunaa lagu ridayaa waa waxyaabaha ka hor imaanayo waay marka qaarkooda bini aadamnimada markay saas tahay marka mudane gudoomiye waxaa meeshaaniti ka dhacay khilaalkii la qoro waxay ahayd oo uu sheegay gabar iyo gabar familyaa dagaalamay okay family markay dagaalameen hala soo xiraa la yidhi wuxuu yidhi gurigan anaa mas-uul ka ah maadaama mas-uul aan ka ahay waxaa la yidhi warkaas ha laga baxee asaga hala soo xiro maaday waxaa loo socday run ahaanta markaa kuu sheegay in asaga la xiro gudoomiye siduu asaga ii sheegay marka mar haddii loo soo baxay in maaday la raba in la xiro wuxuu yidhi ani institution aan ka tirsanahay hay-ad haddaa i xiraysiin hay-addayda wargashta laakiin ani inaa qasab igu wadiin ha isku dayina qorigiisuu soo qaatay difaacu gale difaacu nafsi waaye xaqu u leeyahay inuu isdifaaco intii awood lagu wadi lahaa intii la qasbi lahaa intii la ihaanaysan lahaa haddaanba loo marinba procedurekii hay-addii lahayd ee u talinaysay inta loo maro la dhihi lahaa soo xira askarigaas keena waajib waa dhici lahaa
bilcagsigeedaa la sameeyey animaa iga xoog badan tahay xabadaa lagu aaday qofka haddii xabad lagu aado gudoomiye ma ku siinaya xalwad wuxuu kugu jawaabaa waxa uu haysto kugu jawaabaa ciidan waaye ciidanay ahaayeen xabadaa lagu weeraray difaacuu galay difaacu nafsiyuu galay shareecada islaamkaana waxay qabtaa sideedaba maalkaaga iyo naftaada iyo qoyskaaga haddii lagugu soo weeraro inaad ku difaactantid inaad ku dhimatid bilcagsigeedii waa uu ku dhaawacmay isagoo difaacanayo nafsadiisii iyo qoyska nafsadoodii mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh meeshaan waxaa lasoo bandhigay shax musawir ku yaala kartoon ah waxaa cajiib ah xafiiska xel ilaalinta inuu ku dhawaaqo uu dhaho ciidan waaye nabad sugid waaye afkiisa uu ku adkeeya haddana macawiis iyo shaati inuu usoo geliyo waa waxa waaye wax xaqaa'iqda ka fog waaye waa masawirka la keeno waxa waaye dad iska artist ahoo layska sameeyo waaye maahane xataa masawirkii maadey ma aha nimanka meesha lagu soo sawiray askarta la soo sawiray booliis la iska soo sawiro waaye waa kaarta hadda ka hor maxkamadda in la keenay ay dhici karto waaye bimacnaa waxa waaye waxaan u leeyahay suuraddii la keenay ee nala tusaayay aan arkaynay ma aha suurad maadey matalayso teeda kale guryaha la weeraraa la yidhi gudoomiye oo loogu tagay masawirka waa arkayna ma guryaa ku yeeli bacaadaa ku yiila meesha iyo duuray aheede meel duur iyo meel bacaadoo masawirka ahaay ma masawirkaasaa marka ahay ma ahayn marka waxaa la isqabadsiin karin shaxda timid gudoomiye iyo eedeysanaha xiran iyo goobtii wax ka dhacay isma qabanayso bilxaqiiqa waxaysan isku qabanaynin waxa waaye waa wax isdiidaya la rabo in la isku kabo kasoo gudub mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh in qiraar laga qoro wuu ii sheeg in maxkamadda la keeno wuu ii sheeg in saxiix suul uu saaro wuu ii sheeg laakiin wax baaro la dhaho oo ii yimid oo wax iga qore marnaba ma jirto taas markaa istaaga marka mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh wuxuu ku celceliyey xafiiska xer ilaalinta wuxuu dilay askari asagoo konton jir ah haddii lasoo weeraray gacmaha muu isa saaranaa mudana gudoomiye oo naftiisii la soo aaday ma fiirsanaa video miya maya konton jirka waa isdifaaca xataa 70 jiraa isdifaacaya xataa 80 jir oo shareecada islaamka u banaysa inuu isdifaaco ninkan waa lala dagaalamay in lala dagaalamaa loo soo aaday asna inuu la dagaalamo waay oo iska dhiciyo qaanuunkaasi inay shareecadiyaa siinayso waa u bannaan tahay marka ma ahan kiiska maanta aan u fadhino mid quseeya 434 ama 195 hadda 434 ma ugu jirtay waxa ugu jiro 195 bis oo xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida askari dilay marka ninkan maadey si bareer qof uu u dilay ma jirto ciidana soo weeraray ciidankii soo weeraray waxay isku dayayeen inay xoog ku wataan waa uu ka diiday waa la xabadeeyay wuu ku dhaawacmay wuu isdifaacay difaacu nafsi waay waxa qodobka 34aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ayana way qabtaa marka sidaas daraadeed mudana gudoomiye mar haddii kiiska uu u dhisan yahay inuu yahay kiis difaacu nafsi sida aan maxkamadda uga hor cadeynay sida aan u sheegnay u bayaaninay maragii inta la soo joojiyay inuu qayb ka ahaa weerarka sida aan muujinay in mataqaanaa kiiska isla sidoo kaleeta laga sameeyey wada hadal in mataqaanaa laga baxshay duug iyo rafiso laga baxshay in beeluhu ay yihiin niman wada dhashay horta nimanku oo aad isu xigaan haddana arrintoodii ay xalisteen kan dhaawacna annagaa daaweysanayno kan dhintayna annagaa baxsanayno ay ku heshiiyeen ayagu maxkamaddana ay soo gaari doonto dhowaan maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in maadey cabdow la fiiriyo dhibaatada gaartay ee dhaawaca ee ku taallo qiimeynna ee ugu samaysay dhaawiciisa ciddii mas-uuliyaddeedii iska lahaydna maxkamadda ay u dul saarto isla markaasna diyadii marxuumka ay baxshaan ehelada labada dhinac maxkamadda waa mahadsan tahay xorriyaddiisina dib loo siiyo maxkamadda maxaa ka codsee maxkamadda waxaa ka codsaa inay cadaalad ii fidiso xorriyadayda alla ii siiso ninkii dulman ayay qabato ugu dambeyn fadhigan waxaa soo xiray gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida cabdiraxmaan gacan
warbaahinta qaranka Muqdisho.